Hallow Amiin, iska waran see tahay? Wanawad iska waran bro walaalo see tahay Waa fiicnahay, waqti hore isu kan dambeysay. Soo dhawow. maxaa samaynaysaa what are you doing today Allooda wax badan baan sameynayaa maanta. Waxaan ku jirnaa isbuuc aad iyo aad muhiim u ah. maxaa way what is this Isbuucii la soo dhaafay waxaan ku mashquulsanaa. Miyaad garanaysaa Palm Sunday? Miyaad garanaysaa? I've heard of it is this when people have leaves and they just go Ex- Waa sax. Aad iyo aad baad u garatay. Palm Sunday bay ahayd. Isbuucii la soo dhaafay waxay ahayd maalinkii Ciise Masiix uu galay Jerusalem oo dadkii deganaa magaalada ay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan. miyaad aragtay weliga Soomaalida oo caleemo qoyan ku soo dhaweynaysa madaxweynahooda ama gudoomiyaha magaalada? no I've never seen that Soomaalida weli way isticmaalaan. Weli dadka waxay ku soo dhaweeyaan caleemo qoyan bay ku soo dhaweeyaan. so they still do that today They still do that today. okay so when there's somebody important comes they have the leaves they welcome them Yes, they still doing it. Even weli way sameynayaan xitaa iyagoonu Ciise Masiix iloobay oo dhumay oo ay tahay inay soo noqdaan weli, laakiin dhaqankii way sameynayaan. Ciise Masiix ay ku soo dhaweyn jireen bay weli ku sameeyaan. Ayaga si shakhsiyan ayaga isku soo dhaweeyay. wow I would love to see a video of that waan ku tusi doonaa videogaas. Waan soo dhaafnay isbuucaas. Isbuuc aad u muhiim u ahaa. Ciise Masiix wuxuu galay Jerusalem asagoo saaran dameer. maxaa yeelay Ciise Masiix maadaama uu ka soo tegay xooggii ilaahnimada ka soo tegay oo bilaadan noqday, haddana dameero oo maskiin uu soo koray. Faras iyo wax xoog badan muusa soo korin. okay Marka wuxuu ka qodbeeyey maaragtay macbadku ka qodbeeyey. Wuxuu u sheegay dadka inaan lagu ganacsan karin macbadka. Dadkana aad bay usoo dhaweeyeen. Wuxuu u sheegay dadka inuu yahay Rabbi oo ammaantiisa ka soo tegay. so he was explaining to them who he is and why he's coming in nice markaas dadkii meesha joogay ama wadaadadii ama farisiinta Israa'iiliyiinta way ka xanaaqeen ayagoo ka baqayay inuu ka xoogo boqortooyadooda. Bay ka xanaaqeen, marka way la dagaaleen maalinkaas. and they arrested him okay Hadda waxaa inagu soo socota jimcada soo socota, waxaa la yiraahdaa Good Friday. Ma garanaysaa sababta? Good Friday ma garanaysaa? Good Friday Huh? why is it good Yes, why is it's a good question. Waa su'aal fiican weeye. Runtii Friday-da soo socota waa maalinkii Ciise Masiix la qodbay oo isku tilaabta lagu qodbay. so on this Friday he was crucified dadka qaarkiis waxay dhahayaan ma ogtahay maxaa good loogu bixiya haddii uu Ciise Masiix dhintay. yeah so why good why is this good if the savior dies why is it good So that is waa sax weeyaan. Annaga Soomaalida markii qof naga dhinto waan ooynaa, laakiin Ciise Masiix way ka duwaneyd. Dhimashadiisa waxay ahayd dhimasho dadkoo dhan ay sugayeen. maxaa yeelay wuxuu u qaaday dembigeena inuu dhinto ama qorninku siduu yahay inay u dhacdo oo maaragtay new covenant ama dembi dhaaf bay dadku ay ku helaan dhimashadiisa, kadibna uu sare kaco oo uu noqdo. Waa balaanka iyo qorshuhu u joogay marka inay dhacday taa iyada dad badanaa sugayay. Saas awadeed waa maalin farxadeed. okay so this was the foretold of the new covenant being made and Jesus fulfilling and taking our punishment on this day aad iyo aad waa sax weeye, sidaas weeyaan. Marka waa maalin farxad leh. Waa maalintii nalaga furtay dembiyada iyo maaragtay iyo sharcigii aan ku hoos nooleynba. Hadda sharciga annaga iyo Ciise Masiix buu inoo dhexeeyaa. okay so this is the bridge that has been mended again between us and God aad iyo aad sidaasoo kale Easterka way ku xigtaa. waa hadda soo socota. miyaad saas waad ula socotaa soo maaha? so Friday is Jesus crucified so what is important about Sunday Sunday waa maalin aad iyo aad u wanaagsan. Waa maalinkii Ciise Masiix intuu sare kacay. Si sheekadan aad u fahantid waxaan rabaa inaan kuu sheego. Haddaan ku iraahdo, haddii qof uu ku yiraahdo Mo Faarax wuxuu ku guuleystay 2 bilood oo dahaba, ma ka rumaysanaysaa? if one person told me Mo Farah has won the 2 gold medals and nobody recorded it no I wouldn't believe him Laakiin haddii Stadium Muqdisho oo dadkii oo dhan ka buuxaan, haddii dadkii oo dhan ay ku sheegaan Mo Faarax annaga arkaynay 2 bilood oo qaaday oo dahab ah, haddii ku yiraahdaan ka waran. when the whole stadium of Wimbledon if they said it
Yes, I would believe it. Without evidence, I would believe the eyewitnesses. Yes. aad iyo aad haddaba ciise masiix markii jimcadii oo isku tilaabta ku dhintay oo la duugay axaddii wuu ka sara kacay dhimashadii wuxuuna u muuqday axaddii kadib wuxuu u muuqday in ka badan 500 oo qof. So 500 people have seen him aad iyo being aad resurrected. Well, 5 people have seen him alive after he was crucified. in ciise masiix dadka ay arkaan asagoo ka soo sara kacay dhimashadii inay arkaan aad bay muhiim u ahayd. haddii kale waxay noqon lahayd in la aamino way adkaan lahayd. sida aawadeed rabbigu wuxuu isu muujiyey 500 qof in ka badan oo markaad joogtay deegaankaas joogtay buu isu muujiyey. marka taas waxay caddaynaysaa in ciise masiix sarkicidiisii inay rumaysteen dadkii oo dhan ay arkeen indhahooda ku arkeen. ma og tahay 500 qof markii ay aragtay oo dadkii oo dhan ay arkeen kadib 500 qof magaalada joogay u sheegeen laakiin wuu rumaysan waaye. He didn't believe it. ma rumaysan 500 wuxuu yiri aniga 500 adiga 500 ma rumaysan ayuu yiri wax ajaa'iba way. So he said, I don't believe this. I want to see it for myself. yaa ma rumaysni buu yiri inaan aniga arko oo aan saas u taabto korkiisa kadib waan rumaysanayaa buu yiri. Oh, okay. So he said, I want to touch. yaa markaas aad iyo aad marka waxaan rabnaa inaan akhrino kitaabka John ama Yohana 20 cutubkiisa 20aad aayadda 24 iyo 29 waan akhrinayaa. marka hadda waxaad akhrisay Thomas markii uu Ciise Masiix korkiisa taabtay oo uu arkay meelihii dhaawac ka soo gaaray xitaa kadibna wuu qanacay wuuna rumaystay maxaa yeelay wuu taabtay wuu arkay wuxuu kamid noqday kontonkii 500 intii ka badneed aragtu kamid noqday. marka Ciise Masiix wuxuu yiri waxaa barakaysan buu yiri kuwa ayagoon arkin maqlay inaan sara kacay ee rumaystay. aad baa marka dadka annaga aan u barakaysanaa maadaama Thomas uu ahaa qof taabtay laakiin rabbigu wuxuu yiri waxaa barakaysan kuwa aan sida Thomas ahayn ee maqlay kaliya ee rumeeyay. marka waa muhiim bay inoo tahay masiixiyiinta iyo ummadaha dhanba in Ciise Masiix ayagoon arkin ay rumeeyaan. Yeah. So you're saying for us, by reading, if we believe, we are blessed. Because we haven't seen Jesus, but we believe because we read the eyewitnesses. waa sidaas waa sax weeye aad iyo aad